waana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheikh oo kulamo ka wada dalka Masar faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan mushaar dhimis 50% oo lagu sameeyay shaqaalaha hay'adda NISA taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uu gaaray goobaha ay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka Hubaal News fadlan daawade haddaad janalkan ku cusub tahay qayb ka noqo saaxiibada ku xiran ee ka hela wararka joogtada ah laabaan halkan ku baahina aragtidiina halka uu nagu reebo muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina la agtiina waa inuu dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar halkaas oo booqasho rasmi ah ay uga bilaabatay shalay galinkii dambe madaxweyne Xasan Sheikh ayaa waxa garoonka diyaaradaha caalamiga Qaahire si diiran ugu soo dhaweeyeen waqtigii uu gaaray wasiirka maaliyadda Masar Mudane Maxamed Muuciid diblomaasiyiin saraakiil ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkaas iyo xubno kale sida ay shaacisay fila Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhigiisa dalka Masar Cabdi Fataax al-Siisi maanta la filayaa inuu la kulmo isla markaasna waxa uu la yeelan doonaa wada hadallo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha kuwaas oo diiradda lagu saari doono saddex qodob oo kala ah kow iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo ay labada dal yeeshaan labo la dagaalanka argagixisada iyo saddex dib u soo celinta doorka dowladda Masar ay ka qaadanayso horumarka waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu yiri war kooban oo lagu faafiyay bogga fila Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Masar waxa uu sidoo kale kulan la qaadan doona madaxa ururka jaamacadda Carabta Mudane Ahmed Abu Al-Ghayd iyagoona ka arinsan doona qorshayaasha heer carbeed ee midnimada iyo waxwada qabsiga dalalka ku mideysan jaamacadda Carabta oo dowladda Soomaaliya ay ka tahay xubin muhiim ah dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa waxa ay wadaagaan xiriir qoto dheer oo ku saleysan iskaashi dhaqaale ganacsi waxbarasho iyo waxwada qabsi haase yeeshee wuxuu xumaa 5 sano ee dalka uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan xogta ku helnay Masar ayaa ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee casuumaad u soo diray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud markii dib loo doortay iyada oo la rumaysan yahay in Qaahira ay guushii Xasan Sheikh u ahayd neef weyn oo ka soo fuqday Masar ayay isku xumaayeen dowladii madaxweyne Farmaajo kadib markii uu doortay inuu Itoobiya kala safto oo ay isku hayaan biyo xireenka ay Addis Ababa ka sameynayso webiga Niil oo ay aad uga soo horjeedaan Masar iyo Suudaan booqashada Masar ayaa noqon doonta tii toddobaad ee madaxweyne Xasan Sheikh oo dibadda ku aado tan iyo markii dib loo doortay 15 May kadib Imaaraadka Carabta Turkiga Eritrea Kenya Djibouti iyo Tanzania inkastoo xogaha hoose aanu helaynan ay tilmaamayaan in madaxweyne Xasan Sheikh laga yaabo booqashadiisa sideedaad inuu ku tago dalka Itoobiya kuwa oo marka loo eego qorshihiisu ahaa tegitaanka Masar ka hor inuu tago Addis Ababa balse cudurdaar ka yimid Itoobiya uu dib ugu dhacay safarkii uu madaxweyne Xasan Sheikh ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya geesta kalena xooga kala duwan waxa ay ka soo baxayaan mushaar dhimis lagu sameeyay qeybaha kala duwan ee hay'adda NISA sida aan ku helayno xogaha naga soo gaaraya gudaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya 56% mushaar dhimis ayaa lagu sameeyay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala hay'adda NISA waxaana isa soo taraya wararka kala duwan ee la xiriira sababaha ka dambeeya arrinkaasi sida ay xaqiijinayaan ila waradi muhiim ah waxa isbedel lagu sameeyay mushaaraadka shaqaalaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaana la dhimay inta badan dhammaan mushaaraadka shaqaalaha iyadoo loo kala qaybiyay kow shaqaalihii haystay shahaadada masterka waxaa laga dhigay mushaarkooda qofkiiba $550 halka markii hore ahayd 1000 ilaa $1500 labo shaqaalihii shahaadadooda ahayd baashka waxaa laga dhigay $350 halka markii hore ahayd $700 ilaa $1000 inta u dhaxaysa saddex xirfadlayaasha kala duwan ee labada qeybood ee hore oo lagu qiimeyn jiray aqoontooda mushaar ahaan qaadan jireen inta u dhaxaysay 500 ilaa 1000 waxaa lagu soo koobay hadda $200 oo ay ka wada siman yihiin
4 shaqaalaha qaabilsan dhinaca xuuraanka waxa ay qaadan jireen gunno joogto ah iyagana waxaa lagu soo koobay mushaar ahaan sida xoguhu ay tilmaamayaan $400. sidoo kale xoogaha aanu ka helayna hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa tilmaamaya in dhammaan la joojiyay shidaalkii ay lahaayeen saraakiisha howlgallada degmooyinka iyo kuwa dabagalka. Tallaabadan ayaa la sheegay inuu go'aansaday hogaanka sare ee hay-adda nabad sugidda oo ugu horeeya taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad kaas oo isbedel weyn haatan ku wada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. inkastoo budgetka hay-adan markii la meel marinayay miisaaniyadda wax loogu daray haddana waxaa la sheegayaa inaysan ku filneyn marka loo eego howsha adag ee hay-adan hayso iyo xubnaha kala duwan ee ka howlgala. wararku qaar waxay tilmaamayaan in taliyaha cusub ee NISA uu doonayo inuu isku dheelitiro mushaaraadka kala duwan ee ciidamada taa oo la sheegay in loo arkayay in dad gaar ah mushaaraad dheeri ah loo qoray intii ay joogeen hogaanka hay-adda NISA xubnihii hore ee ka agdhowaa dowladii madaxweyne Farmaajo. waa sida ay wararku qaar tilmaamayaan. taliyihii ku-meel gaarka hay-adda NISA horena usoo noqday taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir haatana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya Yaasiin Farey mar uu ka hadlayay kalfadhiga baarlamanka oo waqtiga ka doodayeen arrimo la xiriira miisaaniyadda ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in hay-addii nabad sugidda uu ka soo shaqeeyay miisaaniyadeeda hoos u dhigid lagu sameeyo meeshii laga rabay inay qayb ka noqoto hay-adaha ugu horeeya ee miisaaniyadooda la kordhiyo isla markaasna kor u qaadid lagu sameeyo maadaama ay tahay hay-addii ugu sareysay dhanka nabadgelyada dalka Soomaaliya. balse waxaan la ogeyn xogaan soo baxaya inay war ka soo saari doonaan hogaanka nabad sugidda Soomaaliya. taliyaha nabad sugidda Mahad Salaad ayaa isagu qayb ka ah safarada kala duwan ee madaxweyne Xasan Sheikh uu ku bixinayay qaar ka mid ah dalalka caalamka kuwa uu qaarkood ka soo muuqday waxaana ugu dambeeyay safarka haatan uu madaxweynuhu ugu maqan yahay dalka Masar oo Mahad Salaad qayb lixaad leh ka ciyaarayo maadaama shakhsiyaadka sida dhow Masar ay iskugu dhow yihiin oo isagu qayb ka yahay. waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa taliya Odawaana waxa uu kulamo kala duwan ka wadaa xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. taliyaha ciidanka militariga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage iyo xubno kale oo hogaaminaya ee qayb ka yihiin xildhibaano ayaa waxa ay socdaal ku marayaan qayb ka mid ah gobolka Boqol gaar ahaan xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. meelaha oo taliyaha booqashada kala duwan ku bixinaya ayaa waxaa qayb ka goobihii ugu dambeeyay ee dagaalada adag ku dhexmaray kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka liyu booliska. taliyaha ciidanka xooga dalka Odawa Yuusuf Raage ayaana la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka liyu booliska kuwaas oo gudaha u soo galeen dalka Soomaaliya isla markaasna Al-Shabaab kula dagaalameen qayb ka mid ah gobolka Boqol. taliyaha ayaa si gaar ah kulan degmada Ceelberde ee gobolka Boqol kula yeeshay taliye ku-xigeenka ciidanka xooga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Sareeye Gaas Sakariya Cabdi Khaliif. kulankan ayaana la sheegay inay diiradda ku saareen arrimo dhowr ah oo ay qayb ka tahay dagaaladii ugu dambeeyay iyo waliba xog kala qaadasho waxaana xubnaha taliyaha uu la kulmay sidoo kale uu kala hadlay arrimo ku aadan badqabka dadka shacabka ah ee aan qaybta ka ahayn dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. taliyaha ciidanka xooga ayaa saraakiishii ka socotay dhanka Itoobiya la sheegay in ay ku heshiiyeen in ammaanka deegaanada dhaca dhanka Soomaaliya la wareegaan ciidamada xooga dalka Soomaaliya halka kuwa dowlad deegaanka Soomaalidana ay dib ugu laabtaan dhanka xadka Itoobiya isla markaasna halkaas ay ka difaacdaan kooxda Al-Shabaab oo isku dayayaan inay guluf xoogani ku galaan gudaha dalka Itoobiya iyadoona ujeedooyin kala duwan ay ka soo baxayaan qorshahooda ku aadan inay tallaabaan xadka Itoobiya. war ay faafisa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay ku sheegeen in ujeedka ugu weyn xubnahan isku soo baheysteen ay tahay inay gaaraan dhulka Oromada degto halkaana ay kaga biiraan jabhad argagixiso loo aqoonsan yahay oo ka dhisan dhulkaasi. hase yeeshee xogaha kale ayaa tilmaamaya in Al-Shabaab ay doonayaan in ay fariisimo ka sameystaan dhanka dhulka buuraleyda ee dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maadaama la sheegay inay garowsadeen guluf xoogan oo kaga soo wajahan dhanka dowladda Soomaaliya. gulufkaas oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud isagoona ka dhawaajiyay Al-Shabaab dhinac walba ee kala dagaalami doonaan. dowladda Soomaaliya ayaa haatan diyaarinaysa ciidamo aad u fara badan oo qayb ka
kuwa laga keenaya dalka Eritrea, waxaana la sheegay in ciidamadaasi loo diri doono deegaanada ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo laf ahaantooda bariyii ugu dambeeyaba dagaalo kala kulmayeen dadka deegaanka qeybo ka mid ah gobolada dalka. Al-Shabaab ayaa haatan dareemayaan culays aad u xoogan oo kaga imaanaya shacabka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana arrimahaas oo isbiirsaday la sheegayaa inay keentay inay walwal soo food saarto kooxdaas oo haatan ma imbidi doonto. waa sida xoguhu tilmaamayaan inay fariisimo waaweyn ka samaystaan buuraha aad ku dhaadheer ee ku yaala dhanka dowlad deegaanka dalka Itoobiya. inkastoo dowlad deegaanka Soomaalidu ay sheegeen inay iska caabiyeen Al-Shabaab isla markaasna ka hor istaageen inay gudaha u galaan dalka Itoobiya, haddana waxaa la tilmaamayaa inay mar kale abaabul xoogani ay ka sameeyeen dhanka gobolka Hiiraan xadka uu la wadaago dowlad deegaanka, halkaas oo dhaqdhaqaaqyadooda saacadii ugu dambeeyay laga dareemayay. guud ahaan daawadayaal wanageynta warki oo aad kala socoteen janalka Hubaal News, fadlan daawadaada janalkan ku cusub tahay qayb ka noqo saaxiibada ku xiran ee ka hela wararka joogtada ah maalinlaha aan halkan ku baahina. aragtidiinana qaybta hoose nagula wadaaga muuqaalkana sii share gareeya, laagtiinana waa inoo dhiiragelin. war kuma aysantiin daawashada iyo la socodka warka janalka.